السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قيمة يا قايا لو جنال كان قدامنا سان وجنال كيني وجنال كوحنا يدين some films and vlogs أصحابتي يا جنال كانوا وعسوا من أمرتنا وإيه قف آدي أنه معني كرامي عيش مدن ولا سين سهرة كسودو إسبر أصحابتي اللي بان walaalkay waa dhawahay janaalka ku dhawahay asxaabtiina dhamaan meel kasta ay joogteen waxaan leeyahay assalaamu calaykum waxaan ugu barateen iyo waxaan naga sugaysan waxa waaye wax xamaasad iyo xiisad oo leh janaalkan oo walaalkay liibaan oo leeyahay maantana waxaan rabnaa challenge-ga inaan isku xijeysan waxa hore loo arki jiray laba rag ee challenge soo qabteen ama laba dumar ee challenge soo qabteen oo ama dil ama guurso marka aniga asiga maanta maadaama rag iyo dumar aan nahay inaan isku xijeysano hadana dadka xamaasad maysan u yeeli jireen dil ama guurso sababtoo ah aan leedaho hebel ma guurso lahayd hawa guurso lahayd laakiin sababta aan ku guurso lahayn ma sheegi jirin dadka hore sababta aan wadila hadii aan dhahane sababta lagu daliibaan oo dadka message sheegi sidoo wixii u yeeli jiray dadka marka maanta waxa yar challenge-ga ugu duwanayna dadka intaas oo in ka badan soo socota insha Allah marka asxaabtu waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin janaalka inta ku xiran oo memberka ka aad iyo aad ugu mahad celinayna asxaabta kale cusub nagu soo biiri doontana waa soo dhaweynayna walaal aad iyo aad u mahadsantaan nagu soo biir subscribe like share comment adiga laga rabaa aad iyo aad u mahadsantihiin marka challenge-gan micnaheedu hadayto labadeena hor dhac la sheegay challenge-gu wuxuu yahay maana la sheegay challenge-gu waxa waaye indhihiina horta ugu bogan doontiin hadii Ilaahay insha Allah challenge-gu waxa waaye guurso ama guursanin marka anigana micnihiisu waxa u soo xulay adiga 6 qof mise 6 ma wadan horta 6 marka 5 rag iyo 5 dumar ayada 5 dumar ay wadataan 5 rag ay wataan marka dadkaas micnihiisu waxa qofkii oo iyadu ay soo xusho waxaan ku diiday ama waxaan ku micnihiisu aan ii sheegeen aan ku yeelay labadoo way micnihiisu ana laga rabaa inaan si faahfaahiyo marka daawasho wacan هذا بلاوي اسمه أنا هو بلاوي سيدا اسكو ماذا أنا هناي أنا كوجو بلاوي ليبان ما دام عشان دمر يكون سوق هذا ما أنت يا قاضي الذي أنا ديد لهاد مركو جوه رئيسه ليبان وحكوجو بلاوي لهاي هنيوكي هنيوكي مجورس لهاد مسوي دي لهاد لا هنيوكي نودي لهاي لين ولا معنا واقف استيلو دكالس كارجين أوكي هنيوكي معني وحير لهاد مسوا خويا معني وقال لهاد إلى سما أنا هنيوكي هرت وقف رسبكتي إنه أنا عادي أنا وها يعني جعلها فنان صومالية هذا مركي رسبكتي قام فنان معني صومالية تهلا صوت أنا معني شخص هانتي هذا وأنا وجعلها معني إيشان أو مركي هذا لكوريا إتها معني لنا عموق هذا معني خروج إلى هيسي قف دميستر لنا عمق دميستر واي marka aniga haniyuukay waa wata madaxa ay saaran tahay maxaa ku wadataa haniyuukay horta waxaan ku wataa xitaa qof 100% degan ayadoo fanaanada oo hadana micnihiisu ishay 4 ka saac micnihiisu ishay meel walba ka soo muuqan karto wax walba sameyn kartaa kiisi qof ayadoo fanaan oo hadana style ilaahay siiyay waxay tahay qof degan 100% way degan tahay deganaantaas iyo quruxdaas aan ku qaatay iyo gadanta isla garanay akasa haniyuukay wiilkan walaalkay liibaan oo haniyuukay waa ku dil lagu muqooro qof dil loo qooro ma baahan baad haniyuukay dil loo muqooro madaxa ay saaran ma sha Allah ay markaaga la jooga in aniga ay weydiisid okay diyaar waayo Instagram-ka ka soo qabanaa sawirada inta ni soo dhigayna dadka aan dooranay dhammaan dadka la soo qaadanay waxaan kaftan waayo wax ma qofkii la dhaw waa dilaan oo ku yaaci lahaa بربلين ملا واسك كفتن entertainment ما فهمتين marka asxaabta qof la jecel yahay ayaa la wadwadaa ama macnihi isaga adiga aad ka hadli kartaa moogta marka qof markii la soo xasuusto la jecel yahay hada dad badan oo la xasuusanayna jiro oo laga soo tagay marka dadka inta hadda soo qaadanay dad aan jecel lahay waa intaas aan sheegayna asxaabta waxaan wax dhib lahaa oo arkinina marka saara baayo qofka hadda ugu horeeyo horta aniga dirtaan aan ku weydiinayo madileed mise waa qaadan lahayd waxa waaye ninka la yiraahdo Nuurdin ma qaata Nuurdin lama dhaafi karaa ما شاء الله واي. نور الدين ولكن ستيل ما هو قاضي
nuurdin walaalkayga waa qaadan lahay laakiin hadda waxaan ku qaadi karin maaragta dilka u siinaya waxaa waaye maasha allah gabar walaashay igagala horumartay atiriisho baadiyo nuurdin inkastoo dil loo quuno macnaha waa maseer badanaa moogtaa nin naa qabana ma qaadan kareen hadda sidaasaa ku dililaa nuurdin okay waa u xirtaad ma ay leedahay hadda nuurdin saaxiibtiisa day maqasnaa igaraal noqoto okay nuurdin saaxiibkii qaaliga ka raali ahaw waxaas kaftan leh waaye walaalkay insha waa allah ogtahay dhib ma lahan kaftantaa dadka waa ogyihin soo maahan sax waaye qofki wax fahmay uu ogyahay inay kaftan tahay barnaamijkan dad la jecel yaa laga hadlaa asxaabta waa nii sheegay mar labaad nagu soo celinaynaa sax waaye liibaan haddii aan ku weydiiyo qofkii labaad rabo hadda inaan ku weydiiyo farxii kawa yare ma dili laheyd mise waa guursan laheyd okay walaalay adiga dadkan dadkan ma isoo qabanaysid maxaa waaye macnaha dadaa jeclaha lee kusoo qabtay la hadla waxaa necba kuuma soo qaban dhib ma lahan farxii kaweer ay dhahday Ah. okay kabta xaaji anigu ma guursadeen waay kabta xaaji waxaan u guursanayn waxay tahay qoftaas afkeeda waxa ka baxaayo qoriga waxa ka baxaayo macan same waa hadda qof fani waaye fan weeta laakiin fannimadeeda halka mar ay ku canaanto ay ka goynayso Soomaa walaale marka aniga kabta xaaji uma dhawaan kari infaante teetega bisku inuu ugu jirtaa laga yaabaa barkinta hoosteeda kabta xaaji ma wato ani liibaan waxaa ku dili lahayd aniga waaye hadda waa iska cadeysan karaa hadda waa kuu sheegi karaa farxiin kaweer waxaa ku dili lahayd macnaha ragay u egtahay qaab dumar dhan maba u ekaw marka sababta haddii isteelkeeda ilaahay rag ka dhigi lahaay hadduu inay kaa sidato waa ujeedaa masaas ku dili lahayd qoftana micnihii waa kulushahay qof kulul aniga hadda qof aan kululeen liibaan kuma dhaqi karaya see ku jiraan walaalo qof kulul aniga is qaban karno waa macaan maasha allah hadda أنا يجونس أنا قاعد يدينا هذا يجونس هذا يدينيس أوكي واو بحر رمين أوكي يسوق قوانين إنستغرام كعرمي أنا أوكي ما نيجي كلا هاد قفك كلا شخص كلا أنا كويدينا أيوة حواي best of YouTuber نكلي هذا عرمي هنا مدل هاد مسوا قال له عرمي هنا armeen waxa u maleena hadda sidana ku keenayo ma aragto laalay armeen inuu hadii maqlaayo u maleena masuu bi ijidaabo armeen si fiican u jeedaa walaalo armeen inuu ku daawan doona rajeena insha Allah hadda ma daawado leef maxaa u dhigayso walaalo ma daawade dimbalaan armeena waan qaada lahaay armeena kal ilaaba u qaada lahaay waxyaaba u qaada lahayn waxa kamid ah markuu gooraysto horta single waaye maada ogna single waaye weli ma arkin noloshiisa macnaheedu YouTube weli muusa keenin oo YouTube ma keenin laakiin dadka dhan YouTube kale wax walba soo dhigaa mugta wax la qaranayo ma jirtaa de ninkaas laakiin badan noloshiisa caadiga ah macnaheedu inuu private ka dhigto soo waa la dhihi lahaay de wax asxaabtiisa xataa wax yar ka soo qaadi lahaayeen armaheena kow horta inuu kaligiis yahaan jeclahay labo nin degan waay maasha allah saddex nin fani waay dadka qosla siiyo maasha allah armaheena waa qaataan arrimahan hadda waa qaataan leedahay waxa ku qaadatina waxa la qodobada oo ku qaadatina waxa kamid ah dhacdo degan oo dhaqi karo waa dhaqi kariya armeen okay adaa rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha saddexaad jiya make up مدلي لهاد مسه وجورسن لهاد جيا ميجا أوكي والله أنا قدرت أن تغيره يعني عادي وسحول صدق أحيره ويكينو يصير حقول على خف أحيره أنا يكين تافين على هذا يوتيوب لما لا بربلين ما لا جيا ميجا واو تاعي أنا ولا شيء وهذا ما هاي حقوقه تا واو تاكلي معنا ضد كده أنا وضناي لما لو حقوقه وحكم بده qof waxa waay ii sheeg oo fani oo dal ku roon ii sheeg dhinac muuqeeda hadii la dhahona waa wataa aniga dooqeyga waay dhinaca kalena fani iyo ayadoo macnihiisa ii sheeg ahaanteedana way qanayso saas ku wataa liibaan oo isleedahay meesha maadaama uu youtuber la wada yahay dadka hadda soo qaadanayno qaarkoodna ay fanaaniin ay yihiin isteelka lagu qiyaasi karaa ma la dhihi karaa dadka qaarkood dadka qaarkood ma la dhihi karaa isteelka qofka ee u fiirin karaa rabitaankooda maadaama fani iyo structurekeeda ku qaada la aad tareejiyaa aad iyo maasha allah adaa kaaga fadhiya okay waxaan hadda kusoo weydiiyey nuurdin KL iyo arrimahana Soomaa okay ninka kale kusoo weydiiyey Dirisla Cabdi
ma qaadan lahayd mise waa micnihii oo u xiiri lahayd ninkaas dhowr qof oo kasoo sameysay videona hadda oo asaga reaction ka bixinaya waa arkay micnihii giddi waxay dhaheen Idris Cabdi maana qaadan lahayn adiga dadkaas ma ku biiraysaa mise ninkaas waa u kala kicinaysaa waa qaadanaysaa Idris Cabdi sida uu hadda oo youtuberkiisa dabacadiisa ay tahay haddii uu yahay ma qaadan lahayn waa u dhamee lahay oo u xiiri lahayd ma lahayd si fiican haddii uu dabeecad kale ay u qarsoon tahayna hadii bini'aadamku waxa waaye nolosha bareefadkiisana haddii ay noloshiisa ay fiican tahay hadda lama dhaqmin moogtaa mana la joogiyo saaxiibna lama ihi waa guursalaya waa qaadan lahay Idris Cabdi walaalkeedu ima qali doona insha Allah laakiin dabeecadda hadda oo social media waxa waa faarkiisa badan hadda anigana waa ogahay inuu faarkiisa igu soo qabanayo oo u dhameelahay dimana hadda waxay leedahay nolosha oo social media haduu yahay waa u xiira hadii nolosha private ay ka gedisan tahayna micnihii waa qaadan lahaa dabcan way ka gedisanaan kartaa micnihii markii social media hadii ka duwan tahay waa qaadan lahaa Idris Cabdi meel kale oo wax ka leeyahay madamaba jirtaba waa in la qaadan karo naagna dhaqan karade okay hadda noloshan social media uu ku joogo ma waxa leedahay micnihii maxaa faarkiisa badan de Idris Cabdi okay waan ka gudubay soo weydiin markaa diiwaan su'aasha farada rabaa inaan ku weydiiyo waxaan kula daba kaca u maleynaa fanaaniin oo hadda waxay soo weydiisay farxiyo kawiyare iyo waxay soo weydiisay UK iyo Jamaica saddex qof ka haya haddana waxaan rabaa qof kale oo gabar walaashay ugu qaaliladan inaan ku dhaho ma u dhamee lahayd mise ma qaadan lahayd qaaliladan horta ayada ma qaadan lahayd qalow ama qaadasho kay qaadan lahayd waa u dhameen lahaa qaaliladan ma qaadan lahayd maxaa dhacay sabab qaalilada ma sha Allah qof ilaahay waxa waa cod siiyay firfircooni siiyay kartina fanaanad Soomaaliyeed way tahay heesaheedan aniga horta badanaa waa dhageystaa beenta micnihii ma fiicno heesaheeda waan dhageystaa filmaanta ama riwaayadaha ay ku jirtana waa iga gadan yihiin micnihii jilniinkeeda wuxuu yahay perfect infant riwaayada u dambaysa ka helaale oo micnihii ay ku jilaayaan naagta kala fur sirto sida u galay oo ku xiranahay aniga micnihii mar walba waa daawadaa mar walba jilniinkeeda horta qoftaas tig waaye perfect waaye walaashay micnihii qaaliladan waxaana ku qaadanaynin ma iidiso ma kaaga jawaabo mise may waxa ku qaadan lahayn la ku dhaamay ma qaadan lahayn sababta ku qaadan lahayd ka rabaa inay sheegtid okay aniga waxaan ku qaadan lahayn horta inteeda kale dhan horta okay waa laakiin qaaliladan kastoo iga gaabanta aniga qof waxaan rabaa iga dheer ama micnihii hadii ugu badan tahay meelahan garbaha camal iyo marayso oo ku xaragoon kara jeclaa liibano aniga dhan wada gaaban sida og tahay mustali Soomaali inta u badan way gaaban yihiin haddana company dhanaaba anaga lacag nagu qaata dadkeena gaagaaban anaa kamid macquul hadda company maxaa loo soo saaraa dadka gaagaaban in kabadha dheer loo soo saarade hadda companygaas lama furin lahayn dadka dhan hadii la dhilaa wada dheernaanaa ma idinku laga gaagaabay aniga qaaliska dadkan oo Asiadan dhaxdan Soomaalida waa naga gaagaabay reality anaga waxa aaminsanaana dadka gaagaaban maadaama maalinta Ilaahay oo qaybinay dhererka hadda anaga aqligaana la siiyay dadka dheerna aqliga loo gafay hada camal aniga dheer xoogaa waa iska gaabanaa meel dhaxaad ahay marka asxaabta u jeedin challenge-gaan waa challenge waa dadka isoo sameeyay waxa uga bedelanahay waxaan sheegoonaa sababahan ku diidnay iyo sababahan ku yeelnay oo ku qaadanay marka waxyaalahan waxyaala ka badan waa naga sugaysiin oo soo kala kicin doonaa insha Allah hadii la yaraal ka dhigo insha Allah hadda yaa noo dhiman marka qof kale ma igu dirirtaa su'aasha adiga ada xanuunjisay qaaladan iyo ay keentamo adaale okay yaa ku soo weydiiyay nurti KL iyo arrimaheena iyo waxa ku soo weydiiyay Idris Cabdi ma okay samiyam fanniga aan wato aan mar walba aan taageero aan jeclahay aan daawado haddaan daawado waa iska qoslaawo ma malayn ka san kartaa ninkaas magaciisa ku sheega anina horta youtuberka ugu jeclahay kal ilaab ugu jeclahay oo hadaa xanaaqsanaa xitaa ay kugu baxdo hadda Soomaalida haday xanaaqsiin ama way seexdaan ama maqaayad tagaan koob kafee qac ka siiyaan ama hal xabo barastimo laakiin aniga waxa barastimo leeyahay hal nin aan jeclahay okay aniga hadda ninkaas aan mar walba fannigiisa aan ku taageero mar walba daawado waxa waa ninka leeyahay Liicato official saaxiib qaali inta ka salaamiya marka Liicato qalbigayga ma ogid
soo jiraan معقول ما ليعت ما ديك معني نعفني ما كتاجرتها faniga ku taageera ودي لي anaa kule وكاس هذا كورتا على حاجة ما فهمتي نكاس وحيرة مسوا ووضع مدح كون سهري liicata بورسني liicata asii macal buursadiisa dushan saara lahay معقول mane meel laga dhigo cad laga tuuro ma walahe نك كاميرا يسكو خالدي نكاس يعني عاتم ما مخالي كرت maya dee qaadashada dee ma ahan dee tii dusha حوق لسكو ma يعني ahan عاد dee وقارس micnaha meel aan ka qalo ama meel aan ka bireeyo dan ma lehe من عول مو كان قديم wuu iga gadan wuxuu iga gadan yahay sababtoo iga gadan yahay ku sheegaa أيوة سوا إيش horta waa nin fani ah كو naagta hesha nin hesha عادي waxaa waaye nin bulshada dhan ay ku xiran tahay بقول كي بقول farxadiisa qosolkiisa عادي haddii waxaa waaye asxaabtiisa xitaa si kasta haddii ugu xanaajiyeen xitaa ma xanaaqayo wixii lagu sameeyey markii la ogaado loo sheegay xitaa waa iska qoslaasay عادي وقف إسك الداعد أو إسك صومالي جعل أو إسك قلب الفرن هرت أنت أنا كأرى السوشيال ميديا عن كبرنا وقف يعني يبدأ كورة قلب الفرن أو مرة بس كفني وحول بعد برانك تا هدي روايات تا هدي يعني فيديو عادي تا وأسأنا قصر كسميسن sayid sax بيعتوك سلامينا ولا الجرات هاي marka asxaabta fiidiyoogan fiidiyo la mid inta ku kulmi doono sidaas amaana Allah fiidiyoogan macnaheedu daawsiis waa ku maasan tahay asxaabta cusub oo soo dhaweynayna subscribe like to xol bidinka naga sugnaa aad iyo aad u mahadsantihiin update badan naga sugto insha Allah taas anaga aan balan qaadnay insha Allah sida idinka noo xiiseynaysiin si ka daran anaga idin xiiseynayno waxa waaye waxaan maalin kasto aan challenge cusub idigu raadinayno waxay tahay sida idinka farxad idin sii lahayn anagana farxad noo sii lahayn markasto aan soo jawaabtiin anaga waxba aan ugu sii kordhayo farxadiina raadinayna sidaas aad iyo aad taas baan maan insha Allah asxaabta fi amaan Allah insha Allah fiidiyo ku xigo amaan